mudane muuse biix cabdi gudoomiyaha ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye ayaa shacbiga reer Somaliland iyo guud ahaanba ummadda islaamka ku hambaliyay munaasabada Ciidul Fidriga awgeed waxaanu hambaliyo halkan uga direynaa dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba waxaanu gaar ahaan u direynaa hambaliyo farxadda ciida dhammaan ummadda reer Somaliland guud iyo dibadba waayeel iyo dhalinyarada rag iyo dumarba si gaar ah waxaanu hambaliyo ugu direynaa oo nagu ducaynaynaa ciidamada qaranka ee har iyo habeen nabadgelyada dalka iyo difaacooda u jooga ilaahay ka abaalsiyo dhibaatada ay u maraan qarankooda ummadooduna way ogtay waxaan hambaliyada ka bacdi ku dardaaraya ummadda Somaliland in ay isu naxariistaan oo ayaamaha ciida dadka jilicsan ee fuqarada ah sida diinteenu fartay inay nala ciidaan oo loogu dadaalo xuquuqda sadaqada ee inagu leeyihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biix cabdi geesta kale waxa uu sharaxay qiimaha ay shacbiga reer Somaliland ugu fadhido munaasabada 26 Juun oo ahayd maalintii ay Somaliland xorriyadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska 26 Juun taariikh maguuraan ay u leedahay qarniga Soomaalidu degto dhan geeska Afrika inta ka degto meel ay joogtaba waa maalintii u horeysay ee calan Soomaali leedahay laga taago ciidda Soomaaliyeed waxaan ku ambaleeyaa dadka reer Somaliland oo maalintaasi u gaar tahay in Ilaahay isagana bisheedina u gaarsiiyay barwaaqo iyo nabad inaga ah xusida ay mudan tahayna waxa weeye maalinta aynu xornimada koow helay qadarin bay mudan tahay waa maalin taariikhdeena ku qoran haddaynu Somaliland mar labaad ka baxnay midnimadii duntayna waxaynu u baahanahay in himiladii aynu dhexdii wadnay oo ahayd inaynu dhisano dawlad ka wanaagsantii gumaysiga horumar ka balaarantii gumaysiga istacayl iyo walaalnimo iyo wadanimo tii gumaysiga markaanu ka baxaynay ka badan inaynu gaadhaan rajeynaya waxaan rajeynayaa ummadda Somaliland inay ilowdo dhibaatooyinka ay yeesheen dagaalkii dib u xoreynta dalka abaarihii ka dambeeyay ictiraaf la'aanta faqrigu waxay keenaan isriix niyad jab iyo faqri badan iyo dhibaato badan bay keenaan taana waxa laga bixi karaa inaga oo isku tashana isku kala soorana ilaahayna aamina dalkeena shaqo ugu jeedsan ummadda Somaliland 26 Juun munaasabadeeda waxaan ku dardaaraya inayna guur ku gaareen hadii aynu baqano duruufaha adeegana haysta oo xooga dalku tahriibo mar hadayna halkaan wax badan keenin in badana dhexda ku dhimanayso oo halaaga ay si marayaan ay ku dhimanayaan oo ilaahayna quraankiisa ku sheegay naftiina tahlukaha gelinina waxa ka wanaagsan inaga oo nahay duruufaha sabab uga baxna dadku markay isku tashado dalkeena ka liita oo ka roob yar oo ka khayraad yar ayaan nimco ka soo saara inagu dadka la mid u beerna ummadda Soomaaliyeed waxaan ku guwaabinayaa 26 Juun ee aynu maanta xorriyada qaadanahay aynu fikrad cusub iyo hal abuur cusub oo aynu shaqaysano oo wixii xun iska qabano waxaan laga qabanaya dawladda koow haday qalatahay waa wax loo sheegay dawladdu way noqotaa dawlad hufan oo la xisaabtami karo markay dawladdu hufanta u mardo horumar kara hadii kale wala niyadjabaya wala saxmanaya wala kala jeejeesanaya ilaahay waxaan ka rajeynayaa barwaaqo horumar wixii dhintana Allah u naxariisto waxa bukana Allah caafimaad siiyo dalkeenana niyad wanaag iyo wada tashi iyo isku tashi war guduceynaya